marka uu dhimanayo camal saalix ah oo camalkaas saalixa ruuxa uu ku nafbaxayo ku dhimanayo sidaas uu tukanayo inay geeridu u timaado sidaas uu quraanka kariimka akhrisanaya inay geeridu u timaado asagoo mujaahid fi sabilillah ah macrakadiina ku sugan inay geeridu u timaado asagoo xaaji ah oo xajinaya بيتك إلهي أقصدي لأجل الله أتغي عبادي قدنية إني قيرد أتماده سيدة سوى قمري عبادي إني قيرد أتماده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه ولا ريال عند الإمام مسلم وحاكسوا حديث القوري صحابي قال هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحاويري رسولك عليه الصلاة والسلام أيايري يبعث كل عبد على ما مات عليه الضم والباهي waxaa lagu soo saarayaa macnaha qiyaamaha wixii uu ku dul dhintay ruuxa waxa uu ku sugnaa markuu dhimanayay ayaa lagu soo saarayaa maalinta yawmal qiyaama xadiidkani waa xadiid cadiim ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la siiyey jawaamicu lkalim hadal kooban فائدة بدن حنبارسن النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم يوحى كمدا حديث كان عظيم كان يبعث كل عبد على ما مات عليه الدم والباء يوحى لقصة صار يا وحي وكلت مركو لمن يي حالته كسرنا أيا لقصة صار ضدك لمن يي saddex xaalo kama baxsana dadka geeriyoonaya geerida ay ku imaanayso saddex xaalo kama baxsana inuu ku sugan yahay marka uu dhimanayo camal saalix ah oo camalkaas saalixa ruuxa uu ku nafbaxayo ku dhimanayo sida isagoo tukanayo inay geeridu u timaado sida isagoo quraanka kariimka akhrisanaya inay geeridu u timaado asagoo mujaahid fi sabilillah ah macrakadiina ku sugan inay geeridu u timaado halka lagu shahaado siiyo asagoo xaaji ah oo xajinaya beytka ilaahay u qasday liajli illaahi u tagay cibaadadii gudanaya inay geeridu u timaado waa arrin lagu farxa arrinkaasoo dhan iyo wixii la midka ah yubcathu kullu cabdin calaa maa maata calayh النبي عليه الصلاة والسلام مركو حجنا حجة الوداع رجي صحابة إلى حجنا مالك سجارات إلى تجنا عرفوا وحكم دها نس صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام كمدا نكا وحضور صارنا هشيسا موقف كيو تجنا هل كيو كدو عيساني هشي أيو كصوفانين qoorta ayuu ka jaray
sidaa ayuu ku dhintay. maalin sagaalaad maalinkii nebiga uu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam alxaju carafa, carafa la taagaya bisha dilxija isagoo xaaji ah ku sugan mowqifka cadiimka duca la ducaystana waxaa ugu weyn maalinkaa ducada la ducaysto, ayuu hasha ka soo dhacay, qoorta ayuu ka jiro, waa dhintay. nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiga wuxuu ku yidhi dhaqa, waxaad ku karfanaysaan labadiisa maro wato. dharka uu ku ixraamnaa labadii koob loogu talagalo qofka ixraaman ee ragga ah ayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam karfan uga dhigay, gooyi hoosta uu ka watay iyo midkii garbaha u saaran. waxa uu yidhi madaxaa ka daboolina, udgoonna ha u marinina, waayo waa xaaji, isagoo dhintayoo xaajiya. qofka xajinaya madaxa inuu daboolo intuu acmaasha ku dhex jira uma banaano, wax udgoomaya inuu marsadana uma banaano. ninka waa u dhintay, ruuxa markuu dhintana waa la dhaqaa, waa la udgoomiyaa, waa la karfaneeyaa, jirkiisoo dhan karfantaa lagu xidhaa. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaa tukhamiruu ra'sa walaa tuxanniduuh, udgoon ha u marinina, madaxiisana ha daboolina. marka ayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam fainahu yubcafu yowma alqiyaamati murabbiya. allahu akbar. waxaa la soo saarayaa maalinta yowma alqiyaama isagoo sidaa u xajinaya, talbiyadiina ku dhawaaqaya, mulabbiya, isagoo oranaya labbayk allahuma labbayk labbayka laa shariika laka labbayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak. kelimaadka aadka u wanaagsan ayaa lagu soo saarayaa qiyaamaha. ilaahayuu ku ajiibayuu ku ajiibay, labbayk allahuma labbayk labbayka laa shariika laka labbayk. alluu ku ajiibayuu ku ajiibay, cid wadaag uma sugnan, ilaahayuu ku ajiibay. ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk, mahadoo idin nicmoo idin allooda iskala yahnasha, laa shariika lak, cid wadaaga kuma sugna. kelimaadka quruxda badan asagoo ku dhawaaqaya ayaa la soo saaraya, qabrigiisa laga soo saaraya. yaa ka wanaag badan, waa uu liibaanay, ilaahay ayaa doortay jalla jalaaluhu. marka qofka inuu camal saalixa ku dul dhinto waa qof wanaag ku dhinta, ilaahay oo doortay subxaanahu wa tacaala waa midka ugu wanaagsan. inuu ku sugan yahay camal xun walciyaadu billaah, camalkaa uu ku dhintay ayaa lagu soo saaraya, sida isagoo sinaysanaya, sida isagoo qamri cabaya, sida isagoo isbaaro u taagay, sida isagoo dadkii dhacaya oo difaacanaya dulmi iyo baatil uu ku sugan yahay, ku dagaalamaya nafta ay ka baxdo. yubcafu kullu cabdin calaa maa maata caleyh, isagoo ilaahay ku caasinaya inuu ku dhinto. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaduu jihaad ugu sugan yahay ayaa saxaabada u yimaadeen. markaas waxay dhaheen maanta hebel arrinkoo suubinayo nin suubiya naguma jiro. nin ayaga ka midoo aad gaalada ula diriraya ayuu ahaa oo geysi ah. marka ayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ninka aad sheegaysaa naarta ku jira, huwa fi nnaar. nin saxaabada ka mid a dabagala ninkii soo u dagaalamayey markii dambe asagaa la beegsada, waa la dhaawacay. dhaawacii oo dhaawacmay waxaa la doonayay inuu u sabro, ilaahay yaa shuuntiisa ku shaqala inuu ku sabro. ma uusan sabrinayo, sayftiisa inta saa u suray dhulka ayuu iska geliyay caloosha, waa isdil, waa isdhamaystira. qofka naftiisa dilaana fi nnaar, qofka naftiisa dilaa intixaar ku suubiya fi nnaar. saxaabigii waa soo noqday, rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimid, wuxuu yidhi waxaan qirsanahay inaad tahay rasuulka ilaahay xaqa ah. ninkii aan lahay nin ka wanaagsan ma jiro oo aad tiri naarta ayuu ku jiraa, waa dabagal uu yidhi rasuulka allah. markii ugu dambeeyda waa la dhaawacay ninkii. markii la dhaawacayna asagaa tuuray caloosh, sayftii caloosha iska gelshay, isdilay. marka ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam
إنما الأعمال بالخواتيم أعماش الله صبنا يوحي كسو قبقبه ويان وحوي وحا الروح الله ختمي وحا الروح الله ختمي مرة قفل بوحو كل انت أيها المسو سارية بغاري يا مسلم وحي صو ساري رسولك عليه الصلاة والسلام إنه يريد قفل باوحي النفتي سأكد لي أي النار تلحيدا يسكد لي هدو بور سكسو توري بورتا يسكسو توري النار تجاهنم اللحيدا haddii tooray uu isku dilay toorayda ayuu isku dilayaa jahannama dhexdeeda walciyaadu billah marka ruux walba waxa lagu khatim oo naftiisa ugu dambeeyda ayaa lagu soo saaraya marka kii camalkiisu biyay camalna lagu soo saaraya xaaladda saddexaad waxa weeye inuu camal mubaax iskaga sugan yahay insaanka oo camalka mubaaxa oo ku dhinto ka ayaa lagu soo saaraya marka xadiidka cadiimka wuxuu nafarayaa inaan ishagaajiyo ma garanayno waqtiga geerida ay noo imaanayso taariikhda aan ku beeganna ilbiriqsiga aan ku beeganna ma garanayno xadiidka inaan ku baraarugno yubcafu kullu cabdin calaa maa maata calayh addoon walba ay waxaa lagu soo saaraya wuxuu ku dul dhinto inaan ilaahay ka baqano waqtigeennana aan ku bixino daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana laga doonayaa dadka waxaa ka mid ah la soo saaray dad indhala waayo adduunka ku indhala'aaya oo macnaha indhaliyada ma aha midda aad fahmaysaan waxa weeye xaqi ayay ka beereen oo ka jeesteen maalin maalmaha ka mid ah qur-aanka kariimka maysan aqrin ama waa aqriyeen markii hore kumaysan camal falin way ka hijroodeen dikrigii ilaahay ayay ka tageen حقي مركي كإن دبيرين أنت تريد الجوبين إلهي سبحانه وتعالى أبان مركض وحكرد أيضا إن رأيه صار ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وراك مسلمك أهو وراش مسلمات هاي آية عظيمك بل كبرها الله سبحانه وتعالى وهو ورنيا قفك كجيسته ذكر جيني يحسكي قفك قرآن كتجا قفك صلاة كتجا قفك حسكي على كتجا عموما ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وها أصلنا للمرء العليلية أدنوك عليلي يكون دريمية إرزاق لي الوعليلية culays oo dareemaya dadka asaga ugu dulaysan waayo wuxuu ka tagay dikrigii Ilaahay subhanahu wa ta'ala allihi razzaqaha yurzaqi allihi rahmanka aha allihi rahimka aha allihi khaliqaha ya abuuray inuu xisoo ka tagay Ilaahay ku caasi adduunku caliil ku dareemay marka waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka adduunka caliiliga waxa u sii dheer wanaxshuruhu yawma alqiyaamati a'ma waxaan kulminaynaa maalinta yawma alqiyaama oo la soo saaraya asagoo indhala markaasuu caraacaray qaala rabbi lima xashartanii a'ma waqad kuntu basiira ilaahay maxaad ii kulmisay anoo indhala oo aan waxba arkay dunida indhaaba ku lahaa qaala kadalika atatka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa